dowladda iyo mataqaanaa eelaheeda kala duwanu ha ku howlgalaano siday Soomaaliya u midayn lahaayeen oo ugu horeysa Soomaaliya sidii dib loogu soo celin lahaa waxa ay mudan tahay xaq u leedahay inay hayso hogaaminta dalka inay qabtaan in ay sahlanaato in iyaga la soo dhaweeyo dowladdu ha ka shaqeyso meel la fadhi maayo waa in la sameeyo dastuur laakiin waa ku meel gaar buu ahaanaya dastuur rasmi ah inta ay leedahay Soomaaliland inta la leeyahay waa maqanta oo ayna ka qayb galaynin hawsha oo ayna codeynta shacabkeedu ka qayb galaynin dastuur rasmi ah dalku ma yeelan karo waxaanu nahay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xuduudaanu leenahay waxa weeye kuwii 60kii weeye waxa qodobka koobaad baa dhigaya constitutionka 60kii weeye maxaan ku idhaahdaa maantana gacanta kuma hayno waxay leeyihiin waanu go'nay wada hadalana way socdaan sharci iyadoo intaas socota in la yiraahdo sharci baanu sameynaa hadda inaga sii goosanay way hadana qoladan koonfureed ya hadda sii goosatay waxa weeye wax kasta oo aynu sameyno ama 2020 ka noqoto ama ka dambeysay ilaa ay arintaas ma taqaanaa ay Soomaaliland ay xal ka gaarayso sharciga yeelanaaba wuxuu noqonayaa sharci ku meel gaar sharci waxa ma qaadan karayno waxaan filayaa mar wasiirka constitutionku arinta inuu soo qaaday dad badan inay ku qayliyeen baan maqlahay isaga saxa waxa weeye xuduudii 60kii baan haysanaa gobolladana waxay leeyihiin waanu go'nay oo Soomaaliland baanu nahay sharci baanu samaysanay hadda مثلا federaalka iyagu miyay nagula jiraan waa ka maqayeen federaalka waa ku meel gaar constitutionka samaysanana waa ku meel gaar ilaa ay ka yimaadaan waxaanu sharci ahayn yeelana ku meel gaar buu ahaanaya laakiin cid sharci u samayn karaysa iyagoo maqan dalka ma jirto waxa weeye ilaa ay xornimadii waxa weeye tabashada way jirtay dhinacaas waxa xasakeedii ciidankiisa kolku inqilaabka sameeyay tabashadaas ay ku lug lahayd saraakiishii maxaan ku raahdaa waqooyiga hay sameeyeen taasay ku lug lahayd heesaa jiro adduunyo hal baan lahaashii horar baan la tagay habeen maran baan sidaa iyo ahayd heeskay qaadi jireen waxa weeye tabashadii in la saxo waa lagaba maarmaan waxaynu sameynay oo nasiib darro ahayd intii la isku darsaday baynu wasiirka gaashaaniga ka siinay cigaan maxaan ku dhahdaa hal iyo wasiirka tacliinta ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo taliyayaasha oo dhan inaga koonfur baa isku wada darsatay gudoomiyihii baarlamaanka khaladaadkii la soo galay weeye calan bay keeneen Soomaalidu waa inay kacdaa oo calankay qaadaa oo u geysaa dowladda Soomaaliyeed oo baarlamaanka hogaaminaysa annagoo isku dhan haddaan intaanu dhaqaaqna aan hargeysa tagno waxa way Soomaaliya rajo yeelanaysaa inta ay iyagu maqan yihiin Soomaaliya rajo ma yeelanayso Soomaalida ugu Soomaalisanna waa iyaga waxaan baroomo kugu soo qaadahayaa 64kii dagaalkii ahaa gaari kasta oo reer waqooyi dagaalka wuu galay gobolka Soomaaliland hadda la baxay qof kasta oo iyaguna dagaalka wuu galay koonfur ciidamada kaliya ka dagaalka ka galay sabankiina sidaas oo kale ahayd baabuurtii ciidamada u rarayd iyo wixii dagaalamay iyagu ahaa dadka ugu Soomaalisan waa iyaga maxaan ku raahdaa inay ugu Soomaalisan yihiin waxa ku muujinaysa shuruud la'aan bay shalay ku yimaadeen waxa weeye shuruud la'aan in loogu tago waxay doonayaan faraha laga saaro annagoo isku dhan oo dawladdii aan u tagno odayaasha iyo shacabkuna uu nala jiro sidaas ayay Soomaaliya ku midoobi karaysaa oo isugu iman karaysaa halganka waa soo wada galay halganka maxaan ku dhahdaa xornimadii waa u soo wada dagaalanay waliba waxaan dhihi karahayaa maxaan ku dhahdaa barayna dheeraayeen baan dhihi karahayaa hadda kolkan 60kii dagaalkii habeenkii aaseeno magaca SYL yaa bixiyay magaca SYL yaa bixiyay SYC la dhihi jiray Somali Club yaa la dhihi jiray youth yaa bixiyay Somali League
michael maryama iyo cabdullah iyo awkaata salool bay ahaayeen iyaga ayaa keenay magaca in lala baxo iyaga ayaa shuruucdii ka shaqeeyey iyaga ayay ahaayeen 15 May kolkii mataqaanaa dhagaxtuur u dhacayay nimanka la ilaalinayay iyagu ahaayeen nimanka ay talyaanigu la bixi rabeen iyaga ahaayeen yay ahaayeen iyagu Soomaaliland ma ahayn soo xornimada kuma ina jirin halka kuma ina jirin waxa weeye inaan indhaha iska tirra maaha khalad baan galay khaladkan galayna waxa way koonfur mataqaanaa waxay ku nooshay si khiyaamo yar oo daciif ah oo waxba u tareenin haddii aan doonayno Soomaaliya inaan badbaadino gaala nagama jirto oo ajnabi nagalama jirtee Soomaali dhexdeeda ku jirta dantii annagoo isku duuban oo odayganaga iyo dawladanaga wada Hargeysa aan ka degno madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo waxay qaadanayaan waxay naga siinayaan dawladana aan ka qaadano waxay naga siiyaan say shalay yeeleen wixii taa ka baxsano waxa weeyaan hadee maxaa weeye uma jeedna inaynu wax saxno sida asheey hadii la sameeyo la yeelo artaas lagu raaco ma laga yaabaa in la helo ana huwata wa xaqiiqo in la helayo waa shacabka naqaana weynaga dareenkooda wadaniyeed baan naqaana sida ehel u yihiin ma garanaya meesha ay istaagayaan ma garanaya inta haddaan sameeyno Soomaaliya waa la helayaa inta laga helo mataqaanaa inta aan ku dhaqaaqno